fadlan haddii ay tahay markii kuugu horreysay ee aad soo booqato janaalka Kahya Plus, sabskraib janalka noo saar, muuqaalkana laag noo dheh. Haddiise aad hore noola joogtay, muuqaalka laag and share noo dheh. Commentiguna waa noo muhiim. Mahadsanidin. bismillahi raxmaani raxiim. Halkan waxaan ka gelaynaa ka shaqaynta imtixaanka wasaaradda, gaar ahaan Part 2. Part 1 toban su'aal ayaan kusoo shaqayn. Part 2 aan bilaabaynaa marka. Wuxuu leeyahay the derivative of the function x is equal y square with respect to y. Haddii la derive gareeyo x iyadoo loo xigaayo y ahaan, waxaa soo baxaysa a b c d. y-da haddii la derive gareeyo muga horgalahana inta kusoo dhaca 2y ay noqonay. maadaama 2y ay noqonayso, waxaa soo baxaya marka maadaama 2y ay noqonayso, waxay noqon muga number b ay noqonay. number b ayaan dooranaynaa. number b ayaan dooranaynaa. waayahay su-aasha labaad waxay noqonaysaa the line xariiq without waxaysan lahayn length, plane, width, bounty. xariiqdu waxaysan lahayn waxaa loo yaqaano width. number c aan dooranaynaa. su-aasha 13 waxaa waaye the number 3 is a factor for saddex waxay factor u tahay. number waxaa lagu yaqaanaa markuu factor yahay waa u qaybsami karaa. numberka uu factor u yahay ayuu u qaybsami kariyaa. 3 20 looma qaybi karo. 48 waa loo qaybi karaa. 26 loo qaybi ma karo. maadaama 48 loo qaybi karo, waxay factor u tahay marka b ay factor u tahay. su-aasha 14 the mean of the 5 number celceliska 4 tiro waa 14. 4 of the numbers tirooyinkaas 4 ka mid waxay yihiin 4 8 12 22. midka shanaad ee waxaa lagu yidhi wuxuu noqaa 11.5 24 42 9.2. 4 number ayaan la isku diray 5 number ayaan la isku dirdiray 5 loo qaybiyey 14 soo baxaysa. 5tii number mid lagaa qariya marka 4tii kale 1 2 3 4 waa midka shanaad oo lagaa qariya number b y 24 haddii aad ku dartid 5 u qaybisid 14 soo baxaysa. sidaa darteed b y. su-aasha 15 mode of the data. mode waxaa waaye uu soo noqnoqosho badan. xarfahan waxa uu soo noqnoqoshada badan waxaa waaye waa l y l. maadaama l ay soo noqnoqosho badan tahay, waxaan dooranaynaa c ayaan dooranaynaa marka oo l ku jirto. c ayaan dooranaynaa. haye su-aasha 16 simplification of square root 8. haddii la fududeeyo maxay noqon marka? waxay noqon 48 waxay ka timid 26 lagu dhiftay 3. 26 waa ka baxay 4 uga baxay 3 intay ku heli. 4 banaanka taal ii raadi marka waa tana. 4 banaanka taal 3na waa number d waaye marka. number d ayaan dooranaynaa. number d ayaan dooranaynaa. waayahay su-aasha 17 the length of the perpendicular line OM in the circle below. fogaanta u dhaxaysa o iyo m waa kanaya. meeshan triangle inta waa 5 inta waa 3 inta maqan. meeshan haddaad fiirisid leenkan waxaa waaye right angle triangle. Pythagoras theorem xeerka loo isticmaalaya 3 iyo 4 3 iyo 5 xiriirka waxaa kala dhexeeya 4 inta 4 ka maqan. c square waxay la mid tahay a square plus b square isticmaal 4 soo baxaysa waa number d aad dooranaysaa. gradient of the line segment janjeerka uu yeelanayo boontiyaashan waxay noqonaysaa 6 minus 5 iyo boontiga b oo 3.1. waxaa samaynaysaa y square y2 laga jaray y1 loo qaybso x2 laga jaray x1 isticmaal. waxaa soo baxaysa minus 2 soo baxaysa a waa jawaabtiisu waa a. lambarka 19 waxaan leenahay the number of ways inta qaab ee 3 committee student be selected from the class of 20 students. 20 arday galaad joogta qaabka 3 arday looga xulo karo waxaa waaye 20 combination 3 waaye. combination isticmaale marka combination isticmaasho waxaa soo baxaysa 140 qaab. 20 combination 3 ayaa leedahay 140 soo baxaysa. nambarka 20aad 3 by over 2 in degree
u bedel in degree hadda radian u qoran tahay in degree ahaan is waxay noqonaysaa xagashan waa standard position waaye maadaama standard ay tahay waxaa waaye marka 270 amba calculator soo qaado 3 pi over 2 waxaa ku dhifanaysaa 180 loo qeybiye pi ayaa ku dhifanaysaa pi isla baxaano isku yaray 270 aa soo baxayso waayahay su-aasha 21aad triangle-kan noociisa laga rabaa saddexaadkan maadaama xagal quman uu yahay right angle waaye maadaama xagal quman uu leeyahay right angle triangle waaye waayahay waxaan u gudbaynaa su-aasha 22aad su-aasha 22aad waxaa soo celi 22 waxaa la yidhi the common ratio of the geometric progression 3 minus 6 2 alif lixa waxaa u qaybinaya 3 6 sida taa loo qaybshay 2 waa minus ay wadataa minus 2 minus 2 waa b marka su-aashana waa b su-aasha 23 waxaa waaye haddii dhaadhuu la tuuro hal mar probability lagu heli karo tiro dhaban ah dhabanka waxaa waaye probability-ga dhaadhuga half ka mid ah halfna waa dhaban halfna waa kisi maadaama half uu yahay dhaadhuga lagu qayb ka mid ah ayaa dhaban ah waa b 1/2 ayaa dhaban ah amba even ah waxay su-aasha 24aad expansion furfur haddii la furfuro waxay noqonaysaa a square minus 2ab plus b square waa c waa special product waaye c waaye 25 waxaan leenahay equationkan y waxay la mid tahay 4a x square garaysan is an equation of circle ellipse hyperbola parabola equationkan waxaa iska leh parabola at the origin markuu originka joogo ayaa iska leh haye the theorem which divided the data into 10 equal parts magaca xog u qaybinaya 10 qayb maxaa loo yaqaan magacaas medium percentile quartile afar u qaybinaya percentile 100 u qaybinaya medium 2 u qaybinaya decile waa midka 10 u qaybinaya midka 10 u qaybinaya decile waaye haye su-aasha ku xigta the straight line joined any two points on the circumference xariiq isku xirta laba bar kasta oo ka mid ah circumference goobo meeriska goobo iskoolada waxaa lagu magacaabaa xariiqdaas diameter lagu magacaabaa radian chord center lagu magacaabo chord waaye diameter ama la dhihi karaa laisleeyahay marka qaarkood diameterka naftigiisa chord caansan marka chord ay isticmaalaysaa haddii sin x uu la mid yahay 3/5 cosna uu la mid yahay 4/5 cos 2x meeqayn la mid tahay cos dhabalan gala lagu diro si fudud isku wareerin waxaa waaye cos 2x waxaa lagu heli jiray cos square x minus sin square x kan square garay 4 square garay 6 3 square garay 9 9 kala goy 7 intan 7 ku haysanaa hoosna 5 iyo 5 hadii la square garay 25 laba laga qaadanaa waa number a numberka d aa isu dhow yahay laakiin minus waa minuska uma baahnina leena 29 derivative of constant marka la derive gareeyo waa 0 constant marka la derive gareeyo waa 0 waaye express waxaa qoraysaa 81% as decimal 100% boqol u dhigantaa boqol u qaybi waxaa soo baxaysa decimal ahaan 0.81 ay noqonaya 0.81 exact value of this cos 15 degree qiimaha saxda ah oo cos 15 degree ay yeelanayso cos 15 degree markii la furfuro waxaa soo baxaysa square root 6 lagu diray square root 2 oo looda qeybiyo 4 aa soo baxayso the intersection of two set a iyo b in the figure at the right is intersectionka waxay wadaagaan labadan kan a waa kan guud b waa kan guud a waa kan ku dhex yaala maadaama aadu ay dhex degan tahay b waxay wadaagaan inta a ay leedahay dhan waa wadaagaan sababto aad yaaba la leeyahay gudaha ku jirta caloosha ku jirta marka waxay wadaagaan 135 waa c ay wadaagaan the base of the common logarithm marka la joogo base waxaa ah 10 ayaa base u ah 10 ayaa base u ah lagu yaqaanaa waayahay su-aasha 34aad qiimaha integrationkan haddii laga saaro intervalkan lagu bedelo kasoo shaqay 12 soo baxayso range of the marks range waxaa la yidhaahdaa
smallest value and largest value ayaa kala jaraysaa qiimaha midka ugu yar waa 43 43 ugu yar ka ugu badan 73 waa haddii la kala jarana waxaa soo baxaysa 30 soo baxaysa 30 ayaan dooranaynaa marka 30 ayaan dooranaynaa 36 maxaa waaye the class of 60 student was examined galaas ka kooban 60 arday ayaa imtixaan laga qaaday 75 boqolkiiba waa baastay tirada dhacday ardadeed meeqa waaye tirada dhacda waxaan ka ogaan karaa tiradan baasta waxaan u bedelayaa number caadi ah waxaan leeyahay 75 loo qaybiyo 100 lagu dhiftay 60 45 aa soo baxaysa 45 inta baasta waaye 60 45 ka gubi marka waxaa soo haraa 15 aa soo haray 15 ka soo hartay waa waxa dhacay 45 ha iska calaamayn 45 kuu soo baxaysa waa inta baasta su-aasha 17 polar form of the complex number tiradan haddii polar form loo bedelo oo medulla iyo argument in la soo raadiyo polar form loo bedelo waxaa soo baxaysa number eedana ka soo baxaysa qaacidada waa taqaanaa ka shaqeey 38 maxaa waaye at the bounty for which the gradient is 0 barta oo slope-ka oo 0 ka yahay waxaa lagu magacaabaa maximum minimum stationary bounty waa stationary bounty barta nigaadiga halkaas waaye hay 39 waxaan leenahay simplification markii aan fududeyno 10 factoria loo qaybiyey 3 factoria ku dhacsan 4 factoria maxaa samaynaya 10kan waa furfure 10 lagu dhiftay 9 lagu dhiftay 8 lagu dhiftay waa waday ilaa 4 ah gees 4 markaa geysid waa joojinay 4 tan 4 taas la bixinay saddexdaana waxaa leedahay 3 lagu dhiftay 2 lagu dhiftay 1 tiradana isku dhifatay iyo saddexdaana isku qaybinay waxaa soo baxaysana 25,200 soo baxaysa factoria u shaqaynaysaa 25,200 soo baxaysa su-aasha su-aasha afartanaad oo ugu dambeysa qaybtan waxay noqonaysaa limit of constant function limitka hadduu constant uu yahay uusan variable oo wadan waxa soo baxaya waa 0 waa constant waa 1 waa unknown limit markuu constant yaa soo baxaya laakiin derivative constant markuu yahay 0 waa soo baxaysa halkaas ayaan kusoo koobaynaa qaybtii koowaad qaybtii labaad barti 2 oo ah su'aalaha doorashada ah maadada xisaabta imtixaanka dowladda 2024 ilaa 2025 imtixaankii la galay aad u mahadsantihiin